runtii waxaan dhamaan daawadayaal barnaamijkeena maanta iyo maalinlaha jubba waxaanu ku soo qaadan doonaa waa maxay sababta uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud u tagay dalka Djibouti xilli la sheegayo in uu arooska Saadaq John ka qayb galayo dowlad goboleedka Galmudug ayaa soo gabagabeysay dhismaha golaha deegaanka degmada Gurceel ciidamada Itoobiya oo lagu eedeeyay xasuuq ay u geysteen maxaabiis Tigray ah qodobadaasi ayaanu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena maanta iyo maalinlaha jubba si sheergareeya barnaamijkeena oo gaarsiiya asxaabtiina baraha bulshada haddaad channelkeena ku cusub tahayna fadlan ugu soo biir adigoo isla markaana subscribe dhahayo mahadsanidin aanu ku bilownay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray magaalada Djibouti halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay sida aan wararka ku helnay madaxweynaha ayaa u tagay dalkaasi sidii uu goobjoog uga noqon lahaa xiritaanka madasha Heritage oo maalmihii la soo dhaafay halkaasi ka socday ayadoo mowduuca sanadkan diiradda lagu saarayay isbeddelada cimilada iyo colaadaha geeska Afrika madaxweynaha ayaa khudbad ka jeedin doona shirka taasoo uu ka soo qaybgalayaasha uga gedi doono dagaalka dawladda ay kula jirto shabaab oo haatan guulo waaweyn laga gaaray wararka ayaa intaasi ku daray in xasan sheekh uu kulan gaar ah la yeelan doono madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo haatan is-arag kooban u dhaxmaray oo kaliya safarka Djibouti ee madaxweyne xasan sheekh ayaa noqonaya kii saddexaad uu dalkaasi ku tago waana safarkii 19aad uu dalka uga baxo tan iyo 15kii May warar aanu helnay ayaa sheegaya in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sidoo kale ka qayb gali doono xafladda arooska General Saadaq John iyo gabarta uu dhalay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayadoo ay jiraan warar la isla dhaxmaraya oo sheegaya in Saadaq John loo magacaabi doono taliyaha ciidanka xoogga dalka taasoo ay ka imaadeen su'aalo ah dastuurka Soomaaliya ma ogol yahay in taliyaha ciidanka xoogga dalka uu guursado haweeney ajnabi ah inkastoo dastuurkii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya uu dhigayo in Soomaalida ku nool Soomaali weyn aysan ahayn ajaanib walow dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya ee hadda isticmaasho uu dhigayo in Soomaali weyn ay yihiin ajaanib dhanka kale wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug ayaa goordhow ku dhawaaqday u dhisidda golaha deegaanada degmada Gurceel warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Galmudug ayaa sida tan u qorneed Galmudug waxay halkan ka shaacinaysaa liiska rasmiga ee golaha deegaanka degmada Gurceel oo doorashadu ka dhacday doorashada golaha deegaanka degmada Gurceel ayaa shalay si rasmi ah uga bilowday degmada Gurceel taasoo isla shalay la soo afjaray waana degmadii labaad oo ka tirsan Galmudug oo golo deegaan ay yeelato hal isbuuc gudihiis degmada Cabudwaaq ayaana 2 maalin ka hor loo doortay meeyarka iyo ku-xigeenkiisa Galmudug ayaa buuq iyo isqabqabsi xoogan kala kulanta inta badan dhismaha golaha deegaanada ugu dambeyntii warbixin uu daabacay wargeyska Washington Post in ciidamo Itoobiyaan ah oo ilaalinayay maxaabiis iyo dad shacab ah oo ku sugan qaar ka mid ah magaalooyinka yaryar ee Itoobiya inay bishii November ee sanadkii hore ku dileen ilaa 83 maxaabuus oo ka soo jeeda qoomiyadda Tigray kuwaas oo lagu hayay xaro ku taala dhinaca koonfurta dalka Itoobiya warbixinta ayaa dhacdadani ku tilmaamtay inay ahayd mid ka mid ah dilalkii ugu dhimashada badnaa ee loo geysto qaar ka mid ah maxaabiista ciidamada Tigray tan iyo intii uu bilowday dagaalka wargeyska Washington Post ayaa sheegay in dilkani oo aan horey loo shaacin in la geystay bishii November 21 sanadkii 2021 waxaana dilkaasi ay ka dhaceen xero u dhow magaalada Miri Abaya halkaasi oo lagu hayay in ka badan 2,000 oo askari oo ka tirsan ciidamada Tigray dad goobjoogayaal ayaa u sheegay wargeyska Washington Post in 16 ilaa 18 ka mid ah ilaalada xeradaasi in ay rasaas ku fureen maxaabiista gelinkii dambe ee maalintaasi taasoo keentay in qaar badani ay u cararaan dhinaca duurka ama kaymaha waxaana eryaday ciidamada dalka Itoobiya warbixinta la daabacay ayaa intaasi ku dartay in kadib markii ay carareen maxaabiista muddo ku dhow saacad in ay heleen qaar ka mid ah dadka deegaanka ayagoo ka baryay in ay caawiyaan hase ahaatee halkii ay filayeen in la caawiyo waxaa weerar ku soo qaaday koox hubaysan oo ka kooban ilaa 150 qof kuwaasoo watay baangado iyo ulo iyo dhagxaan waxayna weerar ku qaadeen maxaabiistii soo baxsatay ee Tigray ahayd goobjoogayaasha ayaa sheegay in maleeshiyaadka weerarka geystay inay si khaldan loogu sheegay in maxaabiistan Tigray inay yihiin maxaabiis dagaal oo ka mas'uul ah geeridii sarkaal ciidan oo u dhashay bulshada deegaankaasi wargeyska Washington Post ayaa sheegay in askarta la laayay aysan ka qayb galin dagaalka looga soo horjeedo ciidamada Itoobiya weeraradan ayaa dhacay xilli ciidamada Tigray ay ku sii siqayeen caasimadda Addis Ababa ee dalka Itoobiya qaar ka mid ah maxaabiista ayaa sheegay in weerarku uu ka dhashay cabsi ama argoosi ay qabeen ciidamada Itoobiya meedadka 83 qof oo Tigray
ayaa lagu aasay xabaal wadareed ka baxsan xerada xabsiga sida ay sheegeen goobjoogayaashu waxaa la isdul saaray sidii qoryo oo kale ayuu yiri mid goobjoogayaasha ka mid ahaa wargeyska ayaa sheegay in ka badan 20 qof oo ay ku jiraan qaar ka mid ah maxaabiista shaqaalaha caafimaadka saraakiil ciidan iyo qaraabo ka soo jeeda deegaanka ka hor inta aan warbixinta la daabicin maalintii Isniinta intaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena maanta iyo maalinlaha Jubba dhageystayaasheena qiimaha leh waxaanu ogeysiinaynaa inaan bixin doono laptop iyo mic C2 si aad ugu guuleysato sheergara barnaamijyadeena like iyo comment waxaan idinka dhex dooran doonaa hal qof oo nasiib u yeesha anigoo ah Ismaaciil Kulmiye iyo bahda wargeyska maalinlaha Jubba waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh and also